qaaliyo wax garad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa eedin balaaran u soo jeediyay maamulka gobolka Saraar taasoo ay sheegeen inay xarb sharci darro kula kaceen dhalinyaro habeenkii xalay laga soo xidhay degmada Qararo iyagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ah sida taan raayid waxaan u qabanay annagoo mushkati ka ah maamulka magaalada meesha Caynaba la yiraahdo iyo Saraar wax kastaba hal la yiraahe aan mushkati ka nahay erga suwaariga sida aan mushkati uga nahayna waxa weeye tuulada Qararo inama joogay hog baa laga qodayay hogta waa la habeen qodaa maalin lama qodo Soomaalidu waxay ku mahmahada xalaal iftiin baa la qashaa la qalan waayo habeen baa la qoday inama u tagado waxay yiraahdeen waarkada iyo habeenkii waxba lama qode dabadeedna markay ka yimaadeen nin baa ka daba yimi sida runtu tahay ee laga dheregsan yahay weeye ninkii ka daba yimi qori buu kala baxay dukaan meeshii markuu tagay xabad buu riday haddii aan nidhaahno xabadaasi cid bay ku dhacday been baanu sheegaynaa xabad buu riday laakiin waxay noqotay xabad dhiilo oo magaaladii dhiilo gelisay subaxii markii waa bariyay inamadii waxay yimaadeen Caynaba iyagoo mushkatiya markay yimaadeen waa la xidhxidhay inamadii waxa xidhxidhay xeer ilaaliyaha xidhxidhay arasaabku waa maqnaa taliya qaybtana waa maqnaa xeer ilaaliyaha inamadii xidhxidhay wax dambiya hadday u hayso maamulka Caynaba inamada dambi hadday hayaan ku soo cadeeyeen wax dambiya inamadaasi male dawladda Soomaaliland madaxdeeda waxaan mushkati ka nahay nimanka halka jooga madaxda ka magaalada Caynaba khaasatan ninka xeer ilaaliya ah ilaa aan kaana haysta markii dambe waxana lagu yiri inamadii maxkamad baa la taagay 3 bilood baa lagu xukumay halka waxaanu leenahay yani ma garanaysaa arrinka caynkaas waa xaq darro waanu ka soo horjeednaa aad iyo aad baan uga xunnahay sidaa darteed inamadaasi waxay ku xidhan yihiin xaq darray ku xidhan yihiin haddii inamada aan la soo dayn oo xaq darrada lagu haysto waxa xalaaloobaysa yani ma garanaysaa sharci darra xalaaloobaysa xaq darray ku xidhan yihiin 3 bilood baa la xukumay baa la yiri inamadaasi waxay yiraahdeen mala god bay soo taageen tuulada la yiraaho Qararo 3 bilood baa lagu xukumay lacagtii waa laga bixiyay xariga baaqigii u harsanaa maamulka jooga wuu diiday Caynaba jooga wax laga qaban ee cadaalad darrada ku haysta inamada halka jooga ee tuulada laga xidhay ee aan waxba lagu lahayn xaq bay u leeyihiin xorriyadooda in loo soo cesho waa loo diiday qabay baa loo hayaa oo aanu leenahay dawladana waxaanu ka codsanaynaa wax ka qabato khaladka imkaragaasi ku xidhan yahay galeen oo jiraaba aanu jirin waxa loo haysto in godadka lagu qodo ninkii dambiile ahaa ee godka qodayay habeenimada qodayay waa la sii daayay maamulka Caynaba waa sii daayay suuqu jooga kii xabada ridayna isna waxa la 2 bilood baa lagu xukumay isna waa la sii deylaya dhibaato kale meesha ka dhicin in wax laga qabto haddii aan meel hayrkii joogo oo gudidii joogto oo aan waxba la iska ogeysiinin waxaan leenahay haddaan odayaasha tahay nabadgelyada asaganu ka shaqaynaynaa nabadgelyada ha lagu dadaalo wax laga Zikriya Cabdiraxmaan Ibrahim Hargeysa Price magaalada Burco ee xarunta